بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada barnaamijka aan idin kugu hayno waxa kamida iyadoo xiisada bariga dhexe cirka ay ku laran tahay ayaa waxa isa soo taraya wararka sheegaya in Mareykanka iyo Israa'iil ay isku diyaarinayaan duulaan culus oo ay ku bilaabaan duqeyn oo ka dhana Iiraan haddaba maxay yihiin ifafaalayaasha muuqda ee ku aadan weerar ka dhana Iiraan oo ay qaadaan Trump iyo Netanyahu xog iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan idin haynaa amuurtan la socda inkastoo doodahani ay muuqdaan haddana war ka duwan qorshahan ayaa ka soo yeeray xogayaha amuuraha dibadda ee Mareykanka Washington waxaa ka bilowday dooda ku aadan hubka nuclearka ee Israa'iil oo muddo dheer Mareykanku u qarinayay maxay yihiin doodahani waan idin faahfaahin doonaa Imaaraadka Carabta oo musaafirinaya kumanayaal Bakistaaniyiin ah oo waddankaasi ka xoogsan jiray iyadoo la wareegay lacagahoodii iyo hantidoodii haddaba maxay tahay sababta loo musaafirinaya dadkan wararkii ugu dambeeyay iyo faahfaahin ayaan idin haynaa maxaa ka jira in khilaaf uu ka dhex jiro madaxweynaha Iiraan iyo ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee IRGC faahfaahin ayaan idinkaga haynaa qodobkan sidoo kale waxaynu barnaamijka ku eegaynaa Jarmalka oo markab dagaal u soo diraya bariga dhexe waxaynu ku hormaraynaa Imaaraadka Carabta oo la sheegayo in kumanayaal kun oo Bakistaaniyiin ah oo waddankaasi ku xoogsan jiray la raafayo haddaba wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan haddii aynu eegno waxaa isa soo taraya warka ka imaanaya dalkaasi isutaga Imaaraadka Carabta oo ku aadan in dowladda waddankaasi ay bilowday olole ballaaran oo musaafiriin ah kaas oo lagu bartilmaameedsanayo kumanaan shaqaale Bakistaaniya iyadoo la xanibayo akoonadooda bangiyada isla markaasna lagala wareegayo kaydkoodii dhaqaalaha warbixinada hore ayaa waxay tilmaamayaan in ku dhawaad 15,000 oo qof la musaafiriyay laakiin hadda waxa la leeyahay tiradaasi waa ay sii korortay oo 10,000 ayay maraysaa dadka la bartilmaameedsanayo ayaa intooda badan waxa la sheegay inay yihiin muslimiinta Shiicada ama kuwa muujiyay taageero ay u hayaan Iiraan kadib xiisadihii military ee ka dhashay weerarkii Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iiraan dabayaaqadii bishii February ila wareedi ayaa waxay sheegeen in dadka la musaafirinayo aan lagu soo oogin wax dacwada isla markaasna aan la siin fursad dhanka qaanuuniga ah howlgalada ayaa la sheegay inay ku jiraan qabaqabasho degdeg ah la wareegista teleefanadooda dadkaasi iyo in dadkaasi la geliyay xarumo xabsi oo kala duwan ka hor intii aan dib loogu celin waddanka Pakistan arrinta ugu muranka badan ayaa ah in dadka la musaafirinayo aan loo ogolaan inay kala baxaan lacagahooda bangiyada taasi oo keentay burbur dhaqaale oo soo food saaray qoysas fara badan qaar ka mid ah dadkan ayaa waxa la sheegay in ay ka shaqeynayeen sanooyin badan Imaaraadka Carabta hogaamiyaal bulsho oo Bakistaaniya ayaa ku tilmaamay tilaabadan mid abaabulan oo lagu beegsanayo kooxo gaar ahaan kadib dagaalkii ka dhacay gobolka inkastoo xabajujin ku meel gaar ah la gaaray haddana wadahadaladii dhanka nabadda ayaa hakad galay iyadoo xiisada gobolkuna cirka weli ay ku shareeran tahay warkaas intaas aynu kaga gudubno markaan waxaynu u gudbaynaa dhankaas iyo Washington Israa'iil waxay ka mid tahay quwadaha nuclearka ku hubaysan laakiin mana beenayso mana xaqiijiso inay haysato nuclear afkay ka xirataa laakiin waxa leeyahay arrintan waa arrin ay abaabuleen wadamada reer galbeedka oo muddo dheer gaar ahaan Mareykanka uu daboolayay arrinta la yaab kale waxay tahay hay'adda la yiraahdo IAEA mar baari karto mana eegi karto kamana hadli karto nuclearka Israa'iil hadda ka hor marba su'aal waxa la weydiiyay agaasimaha hay'adaasi Rafael Grossi waxa la yiri waa idinka ku haysta Iiraan nuclear ma Israa'iil ka hadashaan wuxuu yiri Iiraan waxay qayb ka tahay heshiiska la yiraahdo NPT
xakamaynta hubka nuclearka laakiin wuxuu yiri Israa'iil ma saxiixin buu yiri qaybna kama ahan marka wuxuu ku mitaalay qof gurigaaga ku marti qaaday adiga kugu marti qaaday iyo qof aan kugu marti qaadin albaabkiisa gargaraacaysi laakiin taas qiil ma noqonayso Sacuudiga Turkiga Imaaraadka intuba hadda waxaa loo diiday inay samaystaan nuclearka caadiga ah oo nabadeed oo loogu talagalay in loo isticmaalo warshadaha iyo tamarta inkastoo Imaaraadka Carabta hadda uu bilaabay laakiin Sacuudiga waa laga soo horjeedaa Iiraan ayad hadda waxay taagan tahay annaga nuclearkeena waa mid nabadeed warshadaha iyo korontada waxaas ugu talagalna laakiin Israa'iil ma wax laga qabto hadda marka gudaha Mareykanka waxa ka bilowday dood leeyahay arrintan la qarinayo hubka Israa'iil ay haysteen nuclearka waa in Mareykanku ka hadla hadii kale arrintan waa la wajiilinimo haddaba aynu eegno war amurtan la xiriira oo dhanka Mareykanka ka soo baxay saacadihii ugu dambeeyay xildhibaano ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi Mareykanka kana mid ah aqalka wakiilada ayaa ugu baaqay maamulka madaxweyne Donald Trump inuu si rasmi ah ugu aqoonsado barnaamijka hubka nuclearka qarsoodiga ee Israa'iil tilaabo jabin karta siyaasadii muddada dheer jirtay ee labada xisbi ee Mareykanku ay dabooli jireen warbixin lagu daabacay wargeyska The Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in 24 xildhibaan oo uu hogaaminayo xildhibaan Jacqueline Castro ay warqad u qoreen xogayaha amuraha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio iyagoo ku dhaliilay aamusnaanta Washington ee arrintan gaar ahaan iyadoo xiisad dagaal ay ka taagan tahay Iiraan xildhibaanadan ka tirsan Koongareeska Mareykanka waxay sheegeen in qataraha qalad xisaabeed xaaladda oo kacsan iyo adeegsiga hubka nuclearka aysan ahayn kuwa mala awaal ah balse ay dhab yihiin waxayna ku adkeeyeen in Koongareesku uu leeyahay waajibaad dastuuri ah oo si buuxda loogu wargeliyo xaaladda nuclearka ee bariga dhexe arrintan ayaa timid iyadoo ay sii kordhayaan walaacyada ku saabsan doorka Israa'iil oo aan si rasmi ah u qiran haysashada hubka nuclearka isla markaasna aan lahayn siyaasad cad oo ku saabsan sida loo adeegsan karo qabiir Avrin Cohen ayaa waxa uu sheegay in warqadan ay jabisay xeer aan la taaban karin oo jiray 50 sano asalka aamusnaanta Mareykanka ee Israa'iil nuclearkeeda ayaa waxa uu ku qotamaa heshiis la gaaray 1969 kaas oo dhex maray madaxweynihii Mareykanka Richard Nixon iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Golda Meir xildhibaanadu waxay ku doodeen in siyaasadan ka aamusnaanta ahi ay dhaawacayso kalsoonida Mareykanka maadaama isku dayayo inuu xadido barnaamijka nuclearka ee dalalka kale sida Sacuudiga iyo Imaaraadka halka uu ka aamusan yahay Israa'iil Castro ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uusan ka gaabsan karin shaacinta xogtan maadaama ay qusayso amniga qaranka dhaqaalaha iyo waliba ciidamada Mareykanka xildhibaanada marka waxay leeyihiin heshiiskan la gaaray 1969 ee lagu qarinayo nuclearka Israa'iil waa in laga hadlaa haddii kale arrintan waa laba wajiilinimo dad badan waxay ku macneeyeen arrintan inay tahay xaqii oo feeraha ka dilaacay nuclearka markaa samaysatid sida khibrada ay sheegayso waa inaad leedahay laba mabda oo aad qorataa waliba qodob ka mid ah waa in haddii lagu soo weeraro nuclear aad ku jawaabi karto qodob wuxuu dhigayaa haddii khatar aad gashid in isticmaali kartid tusaale ruushka oo kale wuxuu mabda ahaan u aaminsanaa haddii lagu soo weeraro nuclear inuu ku jawaabi karo laakiin waa la bedelay arrintaas 2024 Putin wuxuu saxiixay xeer dhigaya haddii khatar la geliyo ruushka in la isticmaali karo nuclear Israa'iil marka lama oga xeerka u yaal ma haddii khatar la geliya mise haddii lagu soo weerara lama oga ilaa hadda marka dad badan waxay leeyihiin suurtagal waxa ah inay leedahay mabda ah haddii khatar la geliyo macnaha iyadoo aan nuclear xataa lagu soo weerarin
oo waddan aan haysan nuclear ay isqabtaan inay isticmaali karto markaa nuclear waa sababta inta badan loo leeyahay dagaalka Iran waxaa suurtagal ah inuu ku dambeeyo nuclear xildhibaanada marka waxay leeyihiin Mareykanka arrintan waxaa ka saaran waajibaad waa inuu caddeeyaa mowqifkiisa laakiin arrintaasi maamulka Donald Trump uu hoggaansamaya way su'aasha la isweydiinaya waynu arki doonaa wixii ku soo kordha arrimahaasi waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Mareykanka iyo Iran ka dhex aloosan gaar ahaan ifafaalayaasha muuqda ee ku aadan dagaal inuu qarxi doono weliba la weerari doono Iran waxaa kaloo diyahanaa Jarmalka oo markab dagaal soo diraya maxaa isbedelay markii hore uu diidanaa inuu u soo diro markab dagaal bariga dhexe sidoo kale waxaan diyahanaa warbixin la xiriirta maxaa ka jira khilaaf inuu ka dhex aloosan yahay madaxweynaha Iran iyo ciidamada IRGC ee ciidamada kacaanka ee waddanka Iran ifafaalayaal waxaa soo baxaya muujinaya dagaal inuu qarxi doono bariga dhexe haddaba maxay yihiin ifafaalayaashan wararkii ugu dambeeyay amuurtan haddii aynu qooraansanno hagaag waxaa isa soo taraya calaamadaha muujinaya dagaal cusub oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Israa'iil oo isbahaysanaya iyo Iran iyadoo ay sii kordhayaan diyaargarowga military iyo xiisadda ka taagan marin biyoodka Hormuz arrintan ayaa si gaar ah u soo ifbaxday kadib markii Mareykanku uu ku dhawaaqay mashruuca loogu yeero mashruuca xurriyadda inkastoo ay jiraan dadaallo dhanka diblomaasiyadda oo u dhaxeeya Washington iyo Tehran falanqayaal Israa'iiliya ayaa aaminsan in xabajoojintii hore aysan isu bedelin heshiis waara isla markaasna Hormuz oo noqon karo albaabka dib loogu bilaabi karo dagaalka shabakadda wararka Axios ee laga leeyahay Mareykanka ayaa ka soo xigatay saraakiil Mareykan iyo Israa'iiliya oo sheegaya in madaxweyne Donald Trump uu amri karo dib u bilaabidda dagaalka toddobaadkan haddii xaaladda dhanka diblomaasiyaddu aysan guulaysan ciidamada Mareykanka ayaa sidoo kale xaqiijiyay inay diyaar u yihiin inay bilaabaan howlgal military haddii amar la siiyo Mareykanku waxa uu sii wadaa hanjabaado joogto ah oo ka dhan ah Iran iyadoo Trumpna uu sheegayo tilaabo adag in la qaadi doono haddii maraakiibta Mareykanka la weeraro taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in markabka dagaalka ee diyaaradaha xambaara George H.W. Bush uu ku sugan yahay badda Carabta isagoo ay saaran yihiin 60 dayuuradood oo dagaal dhinaca kale iskaashi dhow oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa in uu socdo kaasi oo ku aadan suurtagalnimada dagaal cusub safiirka Mareykanka u fadhiya Israa'iil Mark Huckabee ayaa kulan la yeeshay saacadihii la soo dhaafay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyadoo laga wada hadlay xaaladda sii kacaysa wararka ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in Israa'iil ay doonayso in dib ay u bilowdo dagaal xooggan oo ka dhan ah Xisbullah ee Lebanon iyadoo ciidankeedana ay doonayaan in laga qaado xayiraadaha Mareykanka si ay u sii wadaan weerarada falanqeeyaal ayaa ku tilmaamay xaaladda mid aad halis u ah iyagoo sheegaya in gobolkan hal tilaabo uu jiro dagaal ballaaran qobaradu waxay aaminsan yihiin in Israa'iil ay si dhab ah u rabto dib u bilaabidda dagaalka si ay uga baxdo dhibaatooyin gudaha ka jira oo siyaasadeed ugu dambeyn falanqeeyaal kale ayaa sheegaya in dagaalkan uu yahay arrin waqti uun ku xiran iyadoo haddii Iran ay go'aansato inay difaacdo marin biyoodka Hormuz taasi ay ka dhigan tahay dib u bilaabidda dagaal buuxa oo gobolka ka qarxa isla arrimahani waxaa la sheegayaa in xogayaha amuuraha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio uu sheegay in la soo afjaray howlgalladii weerarka ee ka dhanka Iran kadib markii shir jiraa'id xalay uu ku qabtay aqalka cad Rubio dadka wararka fidiya la hadlayay ayaa waxa uu yiri howlgalkii carada weyn waa dhamaaday sida madaxweynuhu ku wargeliyay Koongareeska wuxuuna ku soo gabagabeeyay wajigii howlgalka intaas ayuu ku egyahay isagoo intaa ku daray in Washington ay hadda gashay marxalad isdifaaca halkii weerar ay ka ahayd iyadoo la bilaabay buu yiri howlgal cusub oo madaxweynuhu ku dhawaaqay oo loogu magac diray mashruuca xurriyadda Rubio ayaa sharaxay in ujeedada ugu weyn ee howlgalkani ay tahay mid gargaar loo fidinayo shaqaalaha maraakiibta ku xaniban marin biyoodka Hormuz waa sida hadalka u dhigay isagoo xusay in 10 qof oo rayid ah ay dhinteen sababo la xiriira xiritaanka marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz oo Iran ay xirtay
xagga Iiraan haddii aynu eegno xafiiska madaxweynaha waddanka Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa si cad u beenayay arrinta la xiriirta khilaaf inuu ka dhex jiro madaxweynaha iyo ciidamada ilaalada kacaanka ee loo yaqaano IRGC. wakaaladda wararka Mahir ee laga leeyahay Iiraan ayaa ka soo xigatay madaxa xafiiska madaxtooyada Muhsin Haji Mirzai in wararkan ay yihiin kuwa been abuur ah oo aanu jirin wax khilaaf ah oo u dhaxeeya madaxweynaha iyo ciidamada ilaalada kacaanka. wuxuu carabka ku adkeeyay in dhammaan kulamadii la qabtay ay si wada jir ah uga soo qayb galeen saraakiisha iyo madaxweynaha, isla markaasna go'aanada lagu gaaray si la isku raacsan yahay. isla wararka colaadda haddii aynu ku sii soconno, hay-adda lagu magacaabo UKMTO ayaa waxay sheegtay in markab xamuul xalay lagu dhuftay walax aan la aqoon gudaha marinka Hormuz, taasi oo sii korinaysa walaaca taagan. lama sheegin markabkan waddanka laga leeyahay. ugu dambayntii, ra'iisul wasaaraha waddanka Jarmalka Friedrich Merz ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu diro ciidan ilaaliya xorriyadda marinada badda haddii sharuudaha lagama maarmaanka la helo. wuxuu sidoo kale xaqiijiyey in markabkii ugu horreeyey ee Jarmalka uu leeyahay uu ku sii jeedo badda Mediterranean-ka ee bariga si uga qayb qaato hawlaha sugidda amniga maraakiibta. Jarmalku ma sheegin inuu toos uga qayb qaadan doono hawlahan Maraykanku u wado, laakiin waxaa la sheegayaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump inuu cadaadis saarayo wadamada reer Yurub iyo kuwa NATO si gaar ah si markaasi ay uga qayb qaataan hawlaha la xiriira marinka Hormuz. waa tahay babakan aynu eegno war degdeg ah oo hadda soo dhacay. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa hadda wuxuu leeyahay waxaan si ku meel gaar ah u hakanay waxa loogu yeero hawlgalka xorriyadda maraakiibta. arrintan lama oga wax ula jeedo madaxweynaha Maraykanka, laakiin warbaahinta Maraykanka ayaa hadda waxay soo tuurtay warkan ay ku sheegayso in madaxweyne Donald Trump uu sheegayo in muddo kooban la hakinayo kadib markii Pakistan iyo dhowr dal oo kale ay dalbadeen. arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo Iiraan ay wacd ku martay in ay beegsan doonto maraakiibta Maraykanka haddii ay isku dayaan inay soo galaan marinka Hormuz. Trump waxbuu sheegayaa dagaal baan bilaabayaa, hawlgal baan bilaabayaa, haddana wuxuu leeyahay Iiraan baa iga soo codsatay. marka asiga laftigiisa waxaa la yidhi waa nin dantiisa yaqaan. Iiraan xalay waxay ku dhawaaqeen ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga markab soo geli kara Hormuz ma jiro. maraakiibta doonaysa inay ka baxdana oo ay maraanna waa inay fasax naga qaataan. Maraykanku markuu iswaalwaalay maraakiib baa la geeyey meeshii. Iiraan waa la hanjabay, waxaa la yidhi waa idin laynaynaa haddaa soo dhawaataan. Iiraantu waxay yidhahdeen soo gala marka waa yahay. hadda muxuu soo tuuray marka Trump? waana hakinay buu yidhi hawlgalkii ugu magac daray mashruuca xorriyadda. Pakistan iyo wadamo kale iga codsaday buu inaan joojino. marka waynu arki doonaa wixii ka soo korray. Iiraaniyiinta iyagu waxay leeyihiin annagoo meeshan waxaan la fadhinaa miinooyinka badda, gantaallo, diyaaradaha droniska, dooye ismidaamiya, kuwa qaraxaya ay ku rakiban yihiin. waa 5 ilaa 6 hawlgal. xitaa maxaa soo baxay war sheegaya xayawaankan badda ku nool ee la yiraahdo humbrada ayaa waxa la yiri Iiraaniyiinta hadda waxay ku tababareen in qaraxya lagu xiro. marka meeshiiba laga baqayay miino iyo gantaal iyo diyaarad drone ah waxa ku soo gelaya humbro libax oo kala ah sidii libax badeedka oo kale. dabcan garanaysaan humbro ayaa waxa la yiri miin ayada ku buuxda way ku soo gelaysaa markabka docda ka gelaysaa oo qaraxaya markabka. marka Trump marka waxa la yiri waxaana socdaa la yiri Iiraaniyiinta iska dhaaf baa la yiri bini aadan inuu la dagaalamay xitaa xayawaankii way adeegsanayaan baa la yiri. marka arrinta dib u dhig. وهاجاك waxay ku soo kordhay waynu arki doonaa arrimahaas. inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka, waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan. si aad ula socoto wararkan, barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino. haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamij ka xiga insha Allah. inta ka horeysa nabadgelyo.